aniga la saano baakay hadda maanta kale saaka safar qabsooha controlki garoowe aan cashuur la weydiin jirin ee gaarigayga lagu baari jiray ee SSC Khaatuma markaa dhahday aan soo galay waa la baaray cashuur baa la weydiiyay waa waxa ugu yar dekadaha noo furnaa waanu raashinka qalabka ciidanka gaadiidka daawooyinka wax walba kala soo degay cashuur laga qaadsiin jirto awood inta leegaan ugu babacdhig karna maanta inaanu maamul goboleed saa ku kala boodno oo cashuur bixiyaan noqono oo ciidanka ku filaano oo dhinac walba difaaca ku filaano oo dhinac walba iska filaanaa meesha ma taabo hogaamiyaha SSC Khaatuma inuu go'aan ka qaato isagoo ka buuxsan oo siyaasiyan eegin in la qasbay niman ganacsata oo dana siyaasadeed oo gaar ah leh qaybtood Puntland oo calaysan tahay ku toojal gareynayeen inay Puntland madaxweyne ka helaan maxaa sheegay qaybsiga reeraha ku dagaalamayay baa lacag ku bixiyay in xildhibaanadu firdhiyo ku hadadaan mooshin baanu ka keenaynaa haddii aadan raacin go'aanka afduuban aanu keenay saasuna ku qasbanaayo dadka ku raaca saalo ku tusayaaba dadkii maamulka ku jiray ee la rabay siyaasadda inay jiheeyaan oo dadka runta u sheegaan shacabka ah ayaa kibinayay dadka oo lahaa xabaalaha intay tagaan shuhaadooy dhiiggiinii been baa laga dhigay shuhaadooy dhiiggiinii baa la gatay kacdoonkii Somaliland lagu saaray midweyn bay ka shaqaynayeen in Puntland lagu saaro foolxumada iyo madaxa ay keentana waa mid ogaan doonaa hadda cid dhaxasan doonta waaye annagu waxaan nahay maamul curdina oo aan wali dhameystirnay shuruudaha maamul goboleed u dhameystirnayn sanaago kale hadda cidda majority ka ah ee deegaanka ka ah oo warsageli walaalahayo inaanu u tagno wada hadal lagu tagno qancino wax isla ogolaano si maamulka SSC shuruudihiisa uu buuxiyo kaliya ma aha warsageli cidaan u baahnay isaaq aan istirayno qayb ka mid ah ayaa SSC deegaanka ah oo ay tahay inaanu helno si shuruudaha maamul goboleed aan u buuxino taasi ma ay dhicin mara suurtoobin anagoo dekadaha dhaqaalaha iyo budget fadhiyahay 10 kun oo ciidan maanta difaaca SSC ku jiraan kaabka kaliya oo haysanay ama cidna ka bisana ay Puntland ahay go'aan degdega oo afduuba oo aan caqli ka talin oo isbadii la afduubay ayay soo saareen ma socon karayo wuxuu noqonayaa fashilkii SSC hore ugu yimid Khaatuma hore ugu yimid saddex sano hore dhubahati soo fashilmay oo kale dib u fashilmay noqonaysaa haddaana wax iska bedelno garowshiya ka bixin ismadu gafka ka dhacay caruurtoodana aanay u caqli cilmi cishinin wax socon karayo meel la gaarayo